maalmahan dambe waxaa soo badanayo waalidiinta ka caawanayo kindergartenka ama meelaha ilmaha lagu xanaaneeyo, halka ilmaha la sheegayo inaysan rabinba inay xanaanada gudaha u galaan ama ay joogaan ayagoo dhibsanayo markaas ninka macalinka ka ama ninka maamulka hayo. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كسر وفجوياني دا كعصبتها وحنا كعوصل لها فيسبوك يوتيوب تيك توك ميل بانو أركتد إن نقول سو بيرتد هذا وما صنتها هذا النوسي تاو مالما عندهم بقى وحاسب بحي المها يرير كحنانة اللي جيو أما كيندرغارتن كا أوديدا أو لهايو كيندرغارتن كمربنو نعليا أو ينايو شركتها سمحيتها تتبدل اللوق يسوي ويدي dad badan talo waa siiyay laakiin waxaan rabaa dadkan isu weydiin ayagana tirkooda inaan talada iska siiyo liwajilla. Okay, ilmaha xanaanada la geeyo laba nooc iskugu jiraan. horta cunug guriga ku tarbiyeysnaa oo aabiis iyo hooyadiis ay tarbiyeysteen, okay, xanaanadan ku tarbiyeysan, iyo cunug xanaanada marka la geeyo la rabo in la tarbiyeeyo aan u kala qaadayna. macnaha cunuga guriga ku edeb darnaa oo xanaana loo geeyay tarbiyeen كاسي كما هادلين كاس دود ديدي حتى ولو قصبه waxaa leeyahay darante takniyo, laakiin waxaan ka hadlaynaa cunuga tarbiyeysan oo xanaanada si nabad ku joogay laakiin maalmihii dambe keenay xanaanada mar raba iyo because ooynaayo oo cunugaas laba mid waayo. cunugaas inuu caafimaad ahaan uu xanuunsan yahay, okay, oo xanuun uu diiday xanaanada maya inuu u diidayo dhibaato ka jirto groupka markaas uu dhigto ama xanaanada guud ahaan. saas markay dhacdo marka maxaa xalka koowaad wuxuu yahay horta cunugaaga in adiga la hadashid. cunugan xanaanada ligiis 3 sano uu jira tusaale ahaan oo cunug Soomaali waa cunug hadlaayo waayo hooyadii cunug way isfahmayaan aba meeliig hooyada cunugina laabta soo gashato jilbaha dhulka u dhigato, okay, ay dhahdo maxaa ka qaldan iskuulka maxaa lagu sameeyay ma xanaanooyin because naga xanaanada ma wax ku yeeleen nimanka ma wax ku yeeleen maxaa ilmaha ma ku dhibeen, okay, inay tartiib u weydiiso cunugadii wax uu sheego way fiican yihiin kadibna markaas inay la hadasho eedsiiqinka ama naagaha xanaanada joogo. haddii cunugii wax sheegi waayo marka waxa uu tegaysaa naagaha groupka mas'uulka ka ah oo ilmaha hayo oo group walba I think 3 qofood ilaa 4 qofood ku joogaan, okay, eedsiiqinka la hadlaysaa kadibna ayaga balan ka samayso oo elten gespräch oo like this kadibna la hado oo dhibaatada jirta u sheeg. haddii ayagii wax ka bedeli waayeen oo cunugii sidii uu diidayo marka sheekada way weyn tahay waa ina u gudubtaa maamulka ama directorka. okay, xanaano walba maamul ay leedahay. adiga markii cunugaaga xanaanada ageenaysay maamul asii marta maamulka uu tegaysaa maamulka arintii u sheegi cunugu wuxuu ku dhahay iyo naaga xanaana groupka ka shaqeeyo waxay ku dhaheen ala wadaagaysaa. haddii maamulka u tagtid oo maamulkii arintii u sheegtid, okay, oo maamulkiina markaas wax ka dhihi waayo waxaa soo jeedinaysaa adiga ka waalid ahaan cunuga in groupka laga bedelo ilaan xanaanada group badan ka jiro oo cunuga groupka maani group kale loo bedelo la arko wixii jiro, okay, idinka maamulka ka tashanayo. haddii arintaas ay shaqeyn weyso oo maamulkii uu diiday inuu bedelo waxaa xaq u leedahay cunugaaga inaad bedelatid kindergarten kale ama xanaano kale inaad geysatid, okay, cunugaagan saas oo kale awaanisid badam wax ilma yihiin inaad la hadashid aad dhahdid waxaan because caadi waayo oo isdejiyo ya xanaanada aad u ya because ilmaha ina u dejisiin. marka intaas ay idin kula talin lahaa khayr badan ay idin rajeena. Assalaamu calaykum.